guddiga amniga gobolka Nugaal oo shirjiraad ku qabtay saldhigga dhexe ee Garowe ayaa soo bandhigay in ka badan 20 dhalinyaro ah kuwaas oo lagu soo qabtay falal moobil furasho iyo amni xumo ay ka sameynayeen magaalada Garowe. Taliyaha saldhigga dhexe ee Garowe, taliyaha qaybta booliska iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal oo saxaafadda kula hadlay saldhigga dhexe ee Garowe ayaa sheegay in dhalinyaradan sharciga la horgeyn doono. taliyaha saldhigga dhexe ee Garowe Dhama Maxamuud Muuse Fardafuul ayaa ka warbixiyay dhalinyarada ay soo qabteen iyo tiradooda. waxaa laga fariistay shir saaka gobolka soo baxay in lagu soo dabar jiro burcad moobilka nimanka la yiraahdo oo ummadda wareeriyay luuq u taagan inuu qof dhaco ama dhiigi galo. halka saldhigga waxaa ku xiran dadka moobilada furto dhaqamada noocaas ah oo ku kaca 25 baa xiran 25 kaasi galalkoodii wuxuu diyaarsan maxkamadda la horgeynay waa la xukumayaa ummadda waa laga qabanaya. guddiga nabadgelyada gobolka waxay saaka go'aan ku gaareen in goobo kala duwan lagu xulo oo aan Garowe lagu xulin. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Faarax Warsame Daad ayaa u digay waalidiinta dhalay caruurta la soo qabtay sidoo kalena waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga. iyagaas waxa go'aan lagu qaatay in laga howlgalo lana soo qabto lana geeyo meelo looga hayo dadka si aysan dadka u dhibaateyn oo ka baxsan degmada Garowe degmooyinka kale in la geeyo ayaan ku ballanay waana la qaadaya qaybta ugu muhiimsan oo markii la qiimeeyo la yiraahdo suuqa markay marayaan ama golayaasha ay joogan ama dadka ay joogan hebel loo yaqaan oo loo yaqaan dadka ugu muhiimsan ayaa ugu xun hadda wixii ka dambeeyana waxa way cidna qarin mayno waa sheegayna boolisku xog badan bay hayaan xogta aanu hayno waa soo bandhigayna meediyahaanu keenayna Facebook aan gelinayna waxa way waalidiinta noocaasana ma qarinayno waxaa jira kuwa ilmahoodu markuu kiisku ku cadaado la aqoonsado markiiba dhibanihi u yeerta oo moobilka hadii wiilku gatay ama gaba uu gatayna iibiya oo lacag ku iibiya oo dhibanihi la heshiiyo oo waxay moobilkii waxay ugu daraanba ugu dara oo yiraahdo hadhow anigu dami ma qabo cidna wax uma haysto eed ma haysto waalidka noocaas sameeya waxa weeyaan dambiyada qayb ka yihiin ilmihiisa kaliya xirimayna isagana waa xirayna. gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa laamaha ammaanka ku amray inay soo afjaraan falalkan amni darro ee ka socda magaalada caasimadda ah waxaana uu sidoo kale eedayn u soo jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta magaalada. waalidiinta waxaan leeyahay ciyaalkaaga waa inaad ka warqabtaa meesha ay marayaan muxuu ka shaqeeyay ilmahaaga ma dadku baartaa ma kuwa shabaabka dadka laayo u shaqeeya ma nin fiican ba horta ilmahaaga waa inaad taqaanaa haddaad ilmahaaga aqoon goortii la soo qabto hay'adaha sharciga ha imaan oo ha oran wiilkaygu waxa weeye dambi maray intuu ma dhibaateeyay wali waxaan ognahay sida hadda maanta ay muuqanaysa kuwa moobiladii wiilashoodu furteen la ordaayo leh waa kan moobilka waa keenay wiilkiisii daayay hadda duduma waxaa la in la dareensado iyo in la dugaasho waxaan ognahay Garowe ciyaalka ugu shidada badan waxaa dhalay dadka magaalada u lacagta badan waxaan dhalay mas'uuliyiinta dawladda u shaqayn jirtay ama xilal hore ha ka hayso ama haddaba hayso dhammaanteen ciidan iyo shacab iyo maamul ila wada shaqeeyo oo hore loo socdo lagana shaqeeyo maslaxadda caamka iyo danta bulshada caasimadda degan iyo guud ahaan Puntland oo dhan sidaasaan kula dardaarmayaa. falalkan amni darro ee ku soo siyaaday magaalada Garowe ayaa ku soo aadaya xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku soo wajahan yahay magaalada Garowe isla markaana Puntland ay u diyaar garoobayso xuska 20 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Goobjoog Garowe.